waxa la badbaadiyay runtii waa masiirka dalkan waxa laga badbaadana waxay tahay ku darsi madaxweynahana wuxuu doonayay waxay ahayd muddo kordhis maalin doorasho qof iyo codna ma doonin mana aha in lagu marsiyoodo waxaan jirin oo shaqadeeda aan la qabanin waxaan dhigi karnaa ku celcelinta oo madaxweynaha ku celcelinaya doorasho qof iyo cod waa wixii la oran jiray kalimatu xaqin urida biha albaatil yahaad hada alxaq laakiin loola jeedo xumaan iyo baatil loola jeedo ayuu ahaa dadka Soomaaliyeedna wuxuu cadeed inta siyaasadda ku howlan way aweed maalinna madaxweynaha inuu doorasho qof iyo cod ka shaqeynin wax allaale wixii ay midnaad doorasho qof iyo cod in la qabtana tilaab uusan u qaadin hadday tahay dhinaca sharciga hadday tahay dhinaca siyaasadda hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinaca dhaqaalaha dhinaca uu tilaab u qaado hadday tahay dhinaca farsamada intaba